Hi guys, magacaygu waa Max iyo Fujar kaasoo ugu bartay inuu ka hadlo cryptocurrency-ga sidoo kale personal development-ga. Maanta waxaan doonayaa inaan ka hadlo cryptocurrency-ga mid ka mid ah passive income-yada ama dakhliga joogtada ah oo aan maalin walba aan ka helo 5 days 7 maalmood passive income ama dakhli joogto ah mar walba account-kayga kusoo dhacda taasoo marka potential ama faa'iido leh. laba qaabood oo expert asset wax lagu helaa. qaabka koowaad waxa waaye maalgashi markaas adigu aad samaysay oo maalintiiba 1% aad helayso lacagta ugu yarna waa $100. qaabka labaadna ugu samayn kartin waxa waaye inaad markaas team building team aad dhisto markaasoo company-gu uu leeyahay 2 banner system oo 2 legs laba lug labada lug marka wax lagu sii doonaa labada lugta ugu weyn maana lugta ugu yar wax laga siin doonaa commission oo boqolkiiba 10 ah. tusaale kale lugtan hadday keento 200 lugtan ay keento 100 taas waxaa helaysaa $10 maadaama 2 legs hadday same ay noqdaan 10% uu yahay. sidoo kalena waxa waaye legska kalena waxa waaye oo labada lug kale bay sii keenaan oo 8% ah. marka waa qaab kaloo markaas ayagana faa'iido aad ku samayn kartid oo unlimited potential markaas lacag markaas aan xadidnayn oo ay ku imaanayso awoodda markaas aad gelisay businesskaaga iyo dakhligaaga. qodobka koowaad waxa waaye keliya maalgasho maalintii 1% hel oo account kusoo dhacdo. maanta marka waxaan la share gareyn doonaa account-kayga dhaqdhaqaaqiisa iyo qaabka aan profit-ka aan u helo waxaan doonayaa maanta inaan la share gareeyo. okay qaybtan waxaa loo yaqaanaa waa profit wallet. waa meesha marka aad maalgashato isla automatic 1% maalintiiba ay kugu soo dhacayso. tusaale kale aniga waxaan maalgashtay lacag gaaraysa $450 ayaan maalgashtay maalintii waxaan helaa $5 450 1% ayaan ka helaa oo maalintiiba ah around $4 iyo bar $2 oo dheeri aan waxaan ka helaa legska oo markaas anigu okay aan tuso marka profit wallet-kayga maalin walba dakhliga kusoo dhaca oo without doing nothing aniga waxaan qabanin clear just aan maalgashtay bas oo ay dheer tahay teamkii development-giisa haddaad doonayso waay. okay $3.33 aan helay sidoo kale waxaa kaloo helay $3.33 mar kale $3.33 $4.8 $20 transfer $4.8 $4 $2 $4 0.9 $2.8 marka daas intaan waxa waaye markaan bilaabay ilaa iyo just inanka aan helo waaye. haddana maalin walba waxaa soo gaarto $5 isbuuciina waxaan sameeyaa $25 5 days a week marka just waa maalgashi daas intaas waaye qaybta daily earning building ama qayb aan ka dhiso 2 legska qaabka loo dhisaayo waa la share gareyn doonaa. qaybtan waxa loo yaqaanaa waa mining wallet waaye. mining wallet-ka waxa ay qabataa haddii company-gu wuxuu sameeyaa sida hore ku sheegay laba qaabood waa qayb waxa waa trader waaye lacagaha markaas exchange-yada oo ay ka mid tahay USD dollarka iyo lacagaha euro oo kale iyo lagu sameynayo exchange ama sarfaad meeshaas company-gu macaash uu ka sameynayo faa'iido kasoo baxdana uu inta dad walba maalgashtay 1% uu ku siinayo. qaybtaas waa qaybta koowaad oo lacagta faa'iido uu kasoo saaro hadaa maalgashato. qaybta labaad wuxuu faa'iido kasoo saaraa mining-ka waxa waaye cryptocurrency-ga number 1 oo tahay Bitcoin iyo Ethereum iyo Litecoin ayuu wuxuu ku sameeyaa trade oo mining ayuu ku sameeyaa wuu qodaa kadib wixii kasoo baxa ayuu dadka maalgashtay ayuu percentage ku siiyaa. qaybtan ayadana waxa waaye hadda u baahan tahay mining-kaas qoditaankaas ayaad invest garaysanaysaa ama gashanaysaa meesha ugu fiican oo faa'iidada ka samayn kartid waxa waaye 250 meeshana faa'iido gooni ah kaga soo dhacayso oo mining ay ku xiran tahay. qaybtan waa traderka markaas aad helayso
okay qaybtan kale waxa loo yaqaanaa waa wallet cash transfer to cash wallet lacagta markaas aa ka heshay profit walletka 5 maalmood marka ay dhamaato habeenka isniinta oo kale ah waxaa lagu soo wareejin doonaa qaybtan oo loo yaqaano cash transfer wallet kadib marka laba option ku furan inaad withdrawal ku samayso la baxdo ama sidoo kale mar labaad inaad maalgashato oo investment ku samayso okay qaybtan kale waxaa loo yaqaanaa waa binary lacagta markaas adigu aad maalgashatay ama aad dhigatay meeshaan ayay kusoo dhici doontaa meeshaan marka 1% aad maalin faa'iido aad ka helaysaa ayada markaas ay kugu soo dhaceyso qaybtan 1% kaaga maalin walba ah waa profit wallet okay aan ka socdo qaybtan kale waxaa loo yaqaanaa total withdrawal la bixitaanka markaas haddii aad doonayso inaad withdrawal aad ku samayso aad la baxdo lacagta maalin walba aad faa'iidada kugu soo dhacda haddaad doonayso inaad la baxdo lacagta markaas aad la bixi doonto waxay badanaa kusoo dhici doontaa qaybtan oo ah transfer cash walletka oo kusoo dhacdo kadib waxaa awood u leedahay inaad withdrawal aad ku samayso aad la baxdo markay lacagtaada ku dhamaato $55 markaas kadib waa la bixi kartaa waayo waxaa ugu yar $50 ugu yar shanta kale waxa waaye 5% markaas aad ku saarmayso $55 markaad lacagtaada ku gaarto kadib ayaad la bixi kartaa okay la bixitaankaagana waxay kugu qaadanaysaa around 24 hours kadibna waxa waaye waxay kugu soo dhici doontaa account-kaaga ay automatic kugu soo dhici doontaa subscribe dheh sidoo kale like saar gambaleelkana ku dhufo saa video walba aan soo upload gareeyo oo toos oo kuu soo gaaro hana iloowin saaxiibadaada mid ka mid ah inaad gaarsiiso